ka hadlo oo aan idin cadeeyo in heesuhu ay yihiin xalaal qadcan ah oo markaasi waxa weeye quraanka kariimka ah meelna aysan uga soo aroorin hees la xaaraantinimeeyay. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Walaalayaal waxaan ku aragnay baraha bulshada kilib ka hadlaaya heesaha oo uu leeyahay ninka aad arki doontaan wiil ciyaalsiye ah oo ku dhiiranaya diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo culimada inuu wax ka sheego ku dhiiranaya ahkaamta sharciga soo rabo inuu uga hadlo ku dhiiranayo ayaan baraha bulshada ku aragnay. Marka waxaan ka leenahay wax yar wuxuu leeyahay ninkan heesuhu waa xalaal. Heesuhu waa xalaal sharciga xalilayo dadka dhahaya heesaha waa xaraana waxay ku been abuurnayaan Allah subhanahu wa ta'ala saas ayuu leeyahay. saaxiibayaal soo dhawaada waa tooyo waxaan jeclaystay inaan ka hadlo oo aan idin cadeeyo in heesuhu ay yihiin xalaal qadcan ah oo markaasi waxa weeye quraanka kariimka ah meelna aysan uga soo aroorin hees la xaaraantinimeeyay. heesuhu inay xalaal qadcan yihiin aan rabaaco inaan hadda koorna shiiqeygii macallinkeygii macallin cali raaga ka hadlay culimo fara badan ka hadlay shiiq jabarti macallinkeyga ka hadlay culimadeedii oo dhama ka hadashay laakiin anigu wadaba dhiga waxaan jeclaystay inaan idin bayaaniyo iyadoo war la'aan ah. ama nahy huwa darfun amrun darfun li zaman wa makan muayyan hadaad aragti sideedaba wax la nahiyay waa amr xilli iyo waqti ayaa xaraan ah oo quraanka kariimkana ku taal. waa inaad fahantaan horta sideedaba 13 waxyaabood ee xaraanta ahna heesuu ka mid maaha. waa in aad wixii fahantaan heesuhu maba ka mid ah 13 waxyaabood ee xaraanta ah. dad kale heesu waa xaraan dad Ilaahay ku been abuuranayo waa dambiilayaan la ah sheekhu doonaha aad aayada quraanka hore loo sheegay ma aha in quraanka lagu talax tago oo markaasi wax weeye laga been abuur. hay'adaha marka ay soo daleeshadaan qoladan oo yiraahdo heestu waa xaraan dadka yiraahdahay heesu waa xalaale dadka yiraahdo waa xaraan waxay yiraahdaan min الناس man yashtari lahu الحديث lidulil an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidha huzuan ulaika adabun muhim. ayadaas waxay leeyihiin waa min الناس qofka man yashtari ka ganacsanaya lahu الحديث lidulil an sabilillah jidkii inuu ka dhumiyo bulshada bighayri ilmin la'aan wa yattakhidha huzuan ka yeesha walahum waxay leeyihiin ulaika kuwaas lahum waxay leeyihiin adabun muhim. okay suuradan hees kuma soo deginba waxna kama qusayeen heesba ayagu markii aad tiraahdo heesa xalaal ah hees waa xaraan aayadan u soo dalishay aayadan sideedaba lahawal xadiis yaa leeyahay halkan xadiiska marka laga hadlayo waa sheeko xadiiska kii xumaa waa ka soo qaadba heestuna af carabi qinaa subhanahu wa ta'ala saas ayuu leeyahay. markaas wuxuu rabo ku hadlayaa wuxuu leeyahay heesu waa xalaal aayadana u daliila aayad oo wax shaqo aan ku leeyahay heesa ayuu soo qaadanaya markaasuu kor ka saaraya. marka hore waxaan cadeynaynaa sharciga waxa uu ka qabo heesaha iyo xukunka heesaha ay leeyihiin. alxamdulillah muslimiintu waa ka wada dhargan yihiin in badan waan og yihiin heesaha inay xaraan yihiin in Allah looga fogaado subhanahu wa ta'ala in dhikriga Ilaahay iyo Quraanka looga dheeraanayo muslimiintu way ka warhayaan hatta kuwa heesa fanaanada ah way og yihiin heesuhu inay xaraan yihiin in badan oo kamidana way ka toobad keeneen kuwa kalena waxaan leenahay ka soo laabto walaalayaal sharciga muxuu ka qabaa heesaha. heesuhu waa xaraan muslimiintuna waa isku waafaqsan yihiin culimo fara badan oo culimada muslimiinta kamidana waxay ku soo guuriyeen heesuhu inay xaraan yihiin ijmaac ilaa 30 caalim oo kamid ah culimada muslimiinta ku soo guuriyay. aayaad fara badan ayaa ka hadlay heesuhu inay xaraan yihiin. aayaadkaas waxaa kamid ah qowluhu ta'ala wa minan naasi man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adabun muhin. dadka waxaa kamid ah mid iibsanaya hadalka midkiisa lagu daaho hadalka midkiisa lahwiga ah si uga baadiyeeyo dadka jidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta Ilaahay umada uga baadiyeeyo Allah umada uga fogeeyo sharciga umada uga dheereeyo asagoo wax aqoona aan lahayn si uga dhigto waxa weeye jees kuwaasi Allah wuxuu yiri waxay leeyihiin cadaab ihaaneeya oo liida. aayadan waxaa lagu fasiray lahwa alhadith
in laga wado heesaha. saxaabo fara badan ayaa ku fasireen. qur-aanka waxaa fasiraya waxa weeye waa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam. cabdullaahi bin mascuud wuxuu ku dhaartay 3 jeer in lahwul xadiid laga wado heesaha. cabdullaahi bin cabaas aa ku fasiray, cabdullaahi bin cumar aa ku fasiray, jaabir bin cabdillaahi aa ku fasiray, saxaabo fara badan aa ku fasireen. wiil ciyaalsiiye ah oo 2021 jooga waxa uu suu rabo kama yeelanayo, lagumana sirmayo, waa laga warhayaa. asaga iyo meesha biyaha uu ka soo cabay uu ka soo qaatay hawshaas waa laga warhayaa. marka saxaabada waxay ku fasirayaan heesaha inay yihiin oo Allah uu uga hadlayo ayadan waxyaabaha uu uga hadlayo in heesaha ka mid yihiin. aayaadka waxaa ka mid ah heesaha ka hadlaya in xaraan yihiin qowlka Allah subhanahu wa ta'ala wastafziz man istada'ta minhum bisawtika. Allah shaydaanku la hadlay markaasuu wuxuu ku yiri ku duufso cida aad awoodo sawtkaaga. sawtu shayaadiin, sawtkaaga ku duufso. sawtkaas waxaa laga wadaa sawtu shayaadiin waxa way heesaha waaye. waxaana ku fasir saxaabo fara badan ku fasireen. aayaadkaas iyo aayado kale ayaa ka hadlayo in heesuhu ay xaraan yihiin. quraankuna waa uu cadeeyay. nabiga calayhi salaatu wasalaam hadaladiisa waxaa kamid ah uu ku xarimaya heesaha sallallahu alayhi wasallam. nabiga wuxuu yiri la yakunanna min ummati, ummadayda waxaa kamid noqon doono aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazif. dad xalaashanayo xalaal ka dhiganayo zinada, farjiga xalaashanayo, xariirta xalaashanayo, waxa uu khamrada xalaal ka dhiganayo iyo macaazifta kabanada iyo waxyaabaha aalaatu lahwiga ah oo qalabka lagu tumo heesahana xalaashanayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sii waramay in ay imaan doonaan dad dhahayo waa xalaal heesaha, sida hadda aan aragna annaga dad annaga nagu jildiya nagu maqaara ayagoo dhahayo heesuhu waa xalaal. dhiiranaantooda iyo adeegooda sharci ku adag yihiin, ay ku dhiiranayaan sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala. xadiiskan wuxuu tusayaa heesuhu inay xaraan yihiin. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam yastaxilluuna way xalaashanayaan. marka wax xaraan ay xalaal ka dhiganayaan. heesaha waxaa la babar dhigay oo lala socodsiiyay oo la garab dhigay waxyaabo ay caddahay xaaraanimadooda. waxaa ka mid ah alxira, farjiga, zinada, xariirta ragga waa ka xaraan, iyo khamrada ayaa la daba dhigay. marka xadiidkan wuxuu tusayaa heesuhu inay xaraam yihiin. axaadiiskan iyo axaadiis kale ayaa aad u cadeynayo. culimada muslimiintan waxay kusoo guuriyeen ijmaac inay heesuhu xaraan yihiin. culimo fara badan ayaa kusoo guurisay. culimadaas waxaa ka mid ah imaam al-Qurtubi, waxaa ka mid ah Abu Tayyib ad-Dabari, waxaa ka mid ah Ibn Salah, waxaa ka mid ah Ibn Rajab, Ibn al-Qayyim, waxaa ka mid ah Ibn Hajar al-Haytami. imaam al-Qurtubi rahimahullah wuxuu yiri amma al-mazamir wal-awtar wal-kubatu fala yukhtalafu fi tahrim istima'iha ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون. وحيري مزاميرتا iyo qalabka lagu tumo heesaha iyo qalabka muusikada wuxuu yiri la iskuma khilaafayo xaaraannimada dhageysigooda. inay xaraam yihiin la iskuma khilaafayo. wuxuu sii raaciyay ma maqlin qof kamida dadka la ictibaariyo oo la tixgeliyo hadalkooda oo kamida culimadii salafka iyo a'imadii khalafka qof banaynayo arrinkaas oo iyaga kamida wuxuu yiri ma aanan maqlin. qof banaynaya arrinkaas ma jiro. wuxuu yiri sidaasun xaraam u noqonayn arrinkaas asagoo ah calaamada lagu yaqaano dadka ahlul khumuurka, dadka khamrada iyo waxyaabahaas dadka cabtooyda ah lagu yaqaano, iyo dadka fisqiga u saaxiibka ah ayaa lagu yaqaan ayuu yiri. wuxuuna ka ciyaar shahawaadka. wuxuu yiri laguma shakinayo xaaraannimadiisa iyo waxa weeye qofka sameeya inuu faasiq yahay, inuu dambaabayo laguma shakinayo ayuu yiri. waxaa soo naqliyay Ibn Hajar al-Haytami kitaabkiisa Az-Zawaajir can Iqtiraaf al-Kabaa'ir. imaam Ahmad rahimahullah mar la weydiiyay wuxuu yiri heesaha al-ghinaa'u yunbitu an-nifaaqa kama yunbitu al-maa'u az-zar'a. heesuhu waxay qalbiga ku talaalaan ku beeraan oo qalbiga ka soo bixiyaan ka soo saaraan munaafiqnimo sida biyuhu ay u soo saaraan zarciga iyo dalaga. Fudayl ibn Iyaad wuxuu yiri, Fudayl ibn Iyaad rahimahullah wuxuu yiri al-ghinaa'u ruqyatu zina. ghinadu waa tufta zinada
tufteeda way zinay keentaa oo inta badan dadka isticmaala heesaha iyo qashinkaas intooda badan ayaga ugu badan waxyaabaha xumaanta oo qashinka ayaa ugu badan iyaga ayaa ugu badan saas weeye ibnu qayim raximahullahu tacaala wuxuu yidhi isagoo ka hadlayo heesaha iyo xaaraannimadooda waladii shaahadnaahu naxnu wagayrunaa wacarafnaahu fi tajaarib wuxuu yidhi midka annaga aan aragnay annaga iyo kayrkeennaba ay arkeen oo aan garanay tijaabooyinka iyo tajaaribta aan ku aragnay wuxuu yidhi annahu maa daharat almacaazifu wa aalaatu lahwi fii qowmin wa fashat fiihim واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء wuxuu yidhi midka aan ku aragnay annaga waxa weye iyo kayrkeennaba ay arkeen oo tijaabooyinka aan ku aragnay ummadii ay heesaha ka soo daahiraan oo heesaha ku mashquula iyo aalaadka lahwiga waxa weye ummad kuma mashquulaan waxyaabaha noocaasa oo kuma faafaan ilaa allah wuxuu ku salidayaa subxaanahu wa tacaala cadow ayuu ku salidayaa wuxuu ku imtixaanayaa abaar wuxuu ku imtixaanayaa madax xun ayuu ku imtixaanayaa intaasba waa wax la arkay oo mushaahada oo muuqanayo oo annaga aan aragnay iska daa culimadii hore ninkaani waxyaabaha uu marka ku banaynaya waxaa ka mid a wuxuu leeyahay oo hadaladiisa ka mid ahaa heesuhu waa macaan yihiin heesaha qaraamiga marka aad dhegaysato aaday u macaan yihiin waxaad dareemaysaa noocaasaad dareemaysaa ayuu leeyahay oo wax kastoo macaan maxalaalay noqonayaan marka waxyaabaha naarta lagu gala nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in naftu ay jeceshahay naarta waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha nafta ay jeceshahay jannadana waxaa lagu hareereeyey makaarih waxyaabaha nafta ay necab tahay qofka laaluushka qaadana laaluushka waa la macyahay qofka zinaysana zinadu way la macdahay naftu way jeceshahay shahawaad waay xalaal miya wuxuu leeyahay waa macdahay waa macda ayuu leeyahay la yaab ma laha macalinkiisu waa cali dheere ugu horreey arrinkaas oo yidhi waxa hawsha noocaasa yidhi marka meel kale kama soo qaadan waa dareensannahay waxyaabaha uu soo qaato waxaa ka mid ahaa dadka dhahaya heesuhu waa xaraan wuxuu yidhi allay ku been abuuranaya subxaana wa tacaala adaa allah ku been abuuranayo oo sharcigiisii wuxuusan xalilin xalaal ka dhigaya iska jir iska ilaali intay goor tahay ka joog hadda iska ilaali aayaduu soo qaatay xataa aayadda akhriskeeda iyo dhawaaqeeda ma sixi karo qof aan sixi karin aayadda dhawaaqeeda oo aan ku dhawaaqi karin macnaheeda muxuu ka sheegayaa walaa taquluu liman tasifu liman tasifu laba mar waxtaa ku celinaya lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraam carabadiina waxa ay sifeynayaan oo beenta ah yaa ha ku dhihinina kani waa xalaal kani waa xaraam marka asagaa xalaashanayo oo xalaal ka dhigayo wax sharciga xarimay oo culimada muslimiinta ay ka hadleen marka arrinkaas waa uga digeena iska joojiyaan leenahay aayadda kale uu soo qaatay sidoo kale dhawaaqeeda waa qaldaya qofan qur-aankiiba akhri karin xataa yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik aayaddaasna heese ka hadlime tan kalena heese ka hadlime qur-aankiiba ma akhri kaya horta macnihiisa wuxuu ka hadlaa goormuu fahmaya oo waxyaabaha la yaab kale laakiin la yaab ma laho waxaan joognaa zaman oo caqliga isdabagediyey waagii hore waxaa lagu daysan jiray oo la raaci jiray saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye laga dhiga jiray tusaale oo lagu daydo hadda xilligaani waxaa la marayaa xilli ay macno yeesheen dadkii waawaalnaa dadkii qaqaawnaa dadkii ahlu macaasida ah ay macno yeesheen marka mawaasiintii iyo miisaanadii way isgadiyeen dadka dhallinyarada ah ee ninkan u sacabtumaya ee uu ku duufsanayo wahaabiyan ka hadlayaa ee qoladaasaan ka hadlay ku duufsanayo waxaan leenahay walaalayaalow ninkan xaaladiisa ogaada ninkan diinta islaamku la dirirsan yahay xijaabku ku jeesjeesa la dirirsan yahay waxa way heesihii xalilayaa oo iska ogtihiin inay xaaraan yihiin bal allah jiritaankiisa uu inkiraya sidaan soo bandhigi doono insha allahu tacaala marka iska jira wahaabiyo waaye kidaa waaye yuusan ku duufsanin ninkan xataa shiicnimo waa ku jirtaa oo mararka qaar waa ku arnay kalibyadiisa isagoo ka hadlayo oo shiicada faafinayo waana soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala iska jira walaalayaal yaan lagu kadsoomin dadka noocaana yaan wax loo sheergaraynin yaan wax loo faafinin yaan la dhegaysanin yaan lala soconin yaan macno loo yeelin wax noocaana wararka uu sheegay waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi waxaan ka diyaariyey barnaamijkan wax badan aan ka diyaariyey markaasuu warqado soo qaatay warqada maxay macno sameynaya maxaa ku qoran warqada qof aan qur-aankiiba aqri karin yaa waxa uu soo qoray maxay baxtiga uu sameynaya maxaa waaye muxuu diyaarinaya qur-aankii ilaahay dhawaqiisa ma sixi karo markaasuu leeyahay waxbaan ka diyaariyey maxaan ka diyaarinaya qur-aankii ma aqrin kartid iska dhaaf axaadiista iyo hadaladii culamada iyo baxta iskaba daayay wararkaasna waxaa ka soo qaadatay cali dheere iyo wax lamid ah ka soo qaadatay waxna macnaha ma laha marka waxaan ku leenahay niyahow ka joog hawshaan
ka joog rabbiga u soo laabo dad ku raacsan iyo dad ku sacabtuma iyo waxaas wax macna ay sameynayaan malaha marka hadii